isuduwaha wasaaradda caafimaadka Buuhoodle Dr. Cabdiraxmaan Xasan ayaa maanta loo qabtay munaasabad lagu soo dhaweynayay isuduwayaasha wasaaradaha odayaal qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka soo qayb galay kulankii lagu soo dhaweynayay isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Dr. Cabdiraxmaan Xasan iyagoo bogaadiyay inuu ku soo beegmay xilli loo baahnaa ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha isbitaalka dhexe magaalada dhanka kale isuduwayaasha iyo qaybihii kala duwanaa ee bulshada ka soo qayb galay munaasabada lagu soo dhaweynayay isuduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka gobolka Dr. Cabdiraxmaan Xasan ayaa hadaladiisa kala dambeeyay. Cabdiraxmaan soo dhawow insha Allah gacmo furan baan ku wax allaale wixii horta aanu qaybahan ama dadka badankiisa aan wada joogno ee caafimaadka xagga isbitaalka u badan Cabdiraxmaan wax weyn baan la qabanaynaa insha Allah waana ku talagalay qaybaha kalena insha Allah waa soo dhaweynaynaa waan iimanaynaa waynu wada tashanaynaa balaan baynu samaysanaynaa gobolkeenu waa liitaa aad iyo aad buu liitaa inaan wax ka qabanno Soomaaliga Cabdiraxmaan waxyaalo badan oo inoo soo kordhinaya insha Allah xagga caafimaad ku saabsan Cabdiraxmaan oo in badan baa lagu sugayay waan ku soo dhaweynaynaa waa kula shaqeynaa nasiibkayga anagu inta badan adigana waa lagu sugayaa waa deegaankaagii waa dalkaagii magaaladana wax badan iyo deegaankan iyo gobolkan Buuhoodle oo xuduudiisu dheer tahay oo fog tahay oo meelo kala fog leh oo u baahan tacab fara badan ilaahay ha ku fududeeyo celinayno wasiirka wasaaradda caafimaadka Xasan Gaafadhi oo runtii siyaasadda horumarinta caafimaadka gobolka Buuhoodle u doortay nin dhalinyaro aqoon-yahana waxgarada sida ragiga horeeyba ay sheegeen rag hanan kara yoolka iyo hadafka aynu ka leenahay wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka ku soo dhawow bahdi caafimaadka adigoo mas'uula farxad bay noo tahay inaan kugu soo dhaweyno waxaan aad iyo aad u soo dhaweynayaa dhammaan isduwaha cusub ee wasaaradda caafimaadka waxaan ballan qaadayaa insha Allah inaan si wanaagsan oo sharaf leh ula shaqeyno hadii Allah ka dhigo isuduwa marka hore waa kugu soo dhaweynaynaa xafladan gacmo furan baan kugu soo dhaweynaynaa si wanaagsan sida ugu quruxda badan ee loo shaqeeyana waan kuula shaqeynaynaa hadii badankeeda leeyahay isuduwaha waxaan leeyahay adduunka taariikh baa ka hadha bayroolka siyaasadda meel wacan baad ka soo gashay hadii badankeeda leeyahay waxaan ku rajaynaynaa inaad kor u socoto dadka wax kasta cadaalad bay ku deeqaan wax kasta wanaag bay ku deeqaan runtiina dhalinyaro wacan baatay cadaalad iyo wanaag ogow Cabdiraxmaan waxaan leenahay hambalyo waa kugu soo dhaweynaynaa bulshadana waxaan leeyahay insha Allah waan la shaqeyn doonaa qaybaha kala duwan ee bulshada iyo wasaaradda runtii aan xudud ka leenahay hadaan wasaaradda caafimaadka nahay Xasan Gaafadhi oo runtii mahadsan intuu qof mahadsan yahay gartay inaan halkan maanta idinku imaado iisoo kiin magacaabay insha Allah waan wada shaqeyn doonaa koox gaar ma noqon doono qof gaarana mid la shaqeeya ma noqon doono mid bulshada insha Allah ka jooga Woodwood iyo ka jooga Buuhoodle ka jooga Xamar lagu xir iyo Xaradan iyo Qorlugud insha Allah midaba siman baan noqon doonaa abka Dahab Plus iyo casriyeynta adeegyada shirkadda Dahab Shell Dahab Plus oo ku fududeynaya isla markaasina ku koobaya dhammaan baahiyaha adeeg ee idahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda Somtel markasta iyo mar kastaba ku isticmaal applicationka Dahab Plus